بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسنا خيارتنا داونيساي meel kasto aad dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada warkii caalamka ee Darwish TV oo markan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi qodobada warkeena aad ku daawan doontaan hadii eeba idmo waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi hogaaminaya oo gaaray wadankaasi Eritrea sidoo kale ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo socdaalkiisii ugu horeeyay ee dibadda ku tagay dalka Kuwait qodobada caalamkana waxa aad ku daawan doontaan hadii eeba idmo dalka Sacuudiga oo dib ay uga bilowdeen hawlihii cibaadooyinka cimrada qodobadaas iyo kuwa kale ayaad warkeena ku daawan doontaan waxaana idin warrami doona anigoo ah Axmed Ciro markale kuna wanaagsan khiyaartana daawanaysa kuna soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Casmara ee wadanka Eritrea madaxweynaha iyo wafdigiisa waxa halkaasi ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Eritrea iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa madaxweyne Farmaajo oo booqashadiisu ay qaadan doonto muddo 2 cisho ah ayaa waxa uu kulan la qaadan doonaa madaxweyne Isiyaas Afarwarki iyo sidoo kale mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dawladda dalkaasi kulamadaas ayaa dhinacyadu waxay uga arisan doonaan sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka iyo iskaashiga labada dawladood iyo shucuubtooda madaxweynaha ayaa marka uu tagayay Casmara waxa uu ka ambabaxay magaalada Juba ee xarunta dalka Koonfur Suudaan halkaas oo uga qayb galay kulan loogu magac daray dhaqangelinta heshiiska nabadeed ee u dhaxeeya dawladda Suudaan iyo qaar ka mid ah kooxaha hubeysan ee muddada dheer dagaalka kula jiray xukuumadda Khartoum ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa lagu soo warramayaa in uu gaaray dalka Kuwait ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa Kuwait uga qayb galaya kulan loogu baroor diiqayo amiirkii dalka Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmed As-Sabah oo ka geeriyooday dhawaan dalka Mareykanka ra'iisul wasaaraha ayaa inta uu Kuwait ku sugan yahay waxa la filayaa inuu kulamo gooni la qaato amiirka cusub ee dalka Kuwait iyo mas'uuliyiin kale waxaana ka wada hadli doonaan arrimo la xiriira ayaa la yiri iskaashiga labada dawladood dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in baaritaano dhawaanahan la sameeyay lagu ogaaday in uu dib u laba kacleeyay xanuunka COVID-19 ee ka jira deegaano ka tirsan dalka Soomaaliya wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in baaritaan lagu sameeyay dad badan oo Soomaaliya isla markaana qaarkood laga helay cudurka COVID-19 warbixinta ayay wasaaraddu ku sheegtay in 5 maalmood ee la soo dhaafay cudurka laga baaray in ka badan 2700 oo qof isla markaana laga helay 157 qof oo u badan rag dadka laga helay xanuunkaasi ayaa intiisa badan waxa ay sheegtay warbixintu in ay ku sugan yihiin Puntland inta kale ayaa waxa la sheegay in ay ku kala sugan yihiin deegaanada Somaliland Galmudug iyo gobolka Banaadir dalka Sacuudiga ayaa waxa lagu soo warramayaa in 7 bilood ka bacdi ay dadku u cimraysanayaan sidii caadiga ahayd iyadoo dawladda dalkaasina ay sheegtay in tallaabooyin taxaddar leh ay qaadayso si markaasi dib loogu furo adeegyada iyo hawlaha cimrada iyo xajka boqolaal qof oo muwaadiniin Sacuudi ah ayaa lagu soo dhaweeyay masjidka weyn ee Makka si ay acmaasha cumrada u gutaan kadib muddo 7 bilood ah oo la joojiyay sababo la xiriira xanuunka coronavirus wajiga koowaad ilaa 6,000 oo qof ayaa loo ogolaan doonaa inay acmaashooda ku gutaan masaajidka weyn ee Makka waxaana marka ka dambaysa la kordhin doonaa tirada ilaa iyo inta uu ka buuxsamayo masaajidku dadka cimraysanaya ayaa la farayaa inay xidhaan maskarada wajiga isla markaana ay ilaaliyaan kala fogaanshaha bulshada sidoo kale masaajidka ayaa maalintiiba la nadiifin doonaa ilaa 7 goor
Sacuudi Arabia ayaa qorsheynaysa in xujayda ajaanibta ee ugu horeysa la ogolaan doono bisha November ee sanadkan. Boqortooyada Sacuudiga ayaa sanadkan mamnuucday dadka dibadda ka imaanaya sababo la xiriira xanuunka safmareenka. qiyaastii dad ka badan 2 milyan oo qof ayaa si sanadle ah u booqan jiray goobaha barakaysan ee Makka iyo Madiina si ay u gutaan waajibaadka xajka oo ah mid ka mid ah 5 tiir ee Islaamka. gudaha waxa intaasi aan ku soo afmeeraynaa warkii caalamka oo idinkaga imaanaya telefishinka caalamiga ah ee Darwiish xaruntiisa magaalada Nairobi. inta aanu mar kale kulmayno haddii eebbe idmo dhammaantayo isku duuban waxaanu idin leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.